maanta waa maalin weyn anigana sharaf ayay ii tahay inaan idinkala soo qayb galo shirkan weyn ee muhiimka ah furitaankiisa waa runtii horumarka la taabanaya ayay ka mid tahay iyo wadajirka howluna sideedaba iskaashi iyo isu tegid kama maaranto waxaan rabaa inaan runtii aan idin cadeynan aada iyo aada ugu faraxsannahay qaybgalka shirkan muxuu ahay ururka bangileyda ama bangiyada Soomaaliyeed iyo dadka maaliyadda ka shaqeeya ay leeyihiin waa wax aada iyo aada u weyn waxaan sidoo kale bogaadinayaa hay-adaha dowladda iyo ganacsatada iyo dhammaan dadka kasoo wada qayb galay meeshan jooga ee muhiimadda siinaya arrimaha bangiyada iyo bangileyda insha Allah xaaladdeena bangiyada iyo maaliyadda guud ahaan taariikh dheer oo tadawura oo sida hadda xildhibaan Odawaa u sheegayay waayihii la soo maray markaad gadaal u fiiriso iyo maanta meesha la jooga aad runtii aad iyo aad ku farax gelinayo waxaan soo marnay teeramkii ka horreeyay madaxweynaha 2013 bangiga dhexe ee Soomaaliya markaas uu ana qaaday oo bilaabanayo furmay waxa ugu horeeyo oo bangiga uu rabno waxay ahayday Swift code in bangiga dhexe loo helo bangiga dhexe laftiisa in loo helo waxaan gaarnay meel la yiraahdo war wasiirka maaliyadda ee Soomaaliya 4 bilood ama 5 bilood inta jooga biri baxayo annaga waxaan mas'uuliyadooda qaad saxiix ma dhayna madaxweyne adaa saxiixay warqada soo qoraysa kadibna warqadan foomkan kalena adiga saxiixay marka sidaas aan ku saxiixnaa Swift code-ka ugu hore bangiga dhexe lagu soo siiyay maantana arrimaha maaliyadda iyo bangiyada iyo shuruucda iyo waxa iyo wasiir maaliyadeed ha ahaato ama gudoomiyaha bangiga dhexe ha ahaatee meelaha lagu saxiixa iyo shararka lagu qabto iyo kama warqabo marka dalku meel inuu ka yimiday oo meel kale oo maanta marayo taasaa daliil u ah kalsoonidii caalamkana ay dib u soo dhisantay oo maanta Soomaaliya institutions dowladeed oo lagu kalsoon yahay inay leedahay marka maanta meeshaan joognaa laakiin meeshii aan u soconay weli maanaan gaarin meeshii aan u soconay ee aan rabnay inaan gaarno weli maanaan gaarin oo waata hadda laga wada hadlayay waxa noo dhiman wax badan oo ka mid ah annaga isku hayno caalamku mucaamalaad uu leeyahay adduunyo uu leeyahay shuruuc caalami uu leeyahay hab dhaqano uu leeyahay culture ee ma wuxuu leeyahay dhaqan yani oo lagu dhaqmo la dhowro uu leeyahay caalamkuna dhammaantiis annaga isku ma soo kayn jimay kale ee annagaana laga rabaa inaan caalamku isku jimayno horta shuruucdiina laga rabay qaabkiina laga rabay nidaamkiina laga rabay aan la nimaado adduunyaduna shuruuc waa shuruucdeena noo gaarka oo la kalka annaga iskale kuwii caalamka aan kula xiriirayna ee bridge bundada annagii caalamku isku keen xirto soo gudubno noqon lahaa waayo kuwa maanta muhiimadda ay ka taagan tahay walaalayaal bangiyadu shaqo weyn ayay ummadda Soomaaliyeed u hayaan asad iyo institutions ay hanti dadka Soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan ay leeyihiin waaye laana adeega ay hayaan iyo khidmadda ay hayaan oo dhan ayaa ku salaysanba dadka Soomaaliyeed iyo dowladda Soomaaliyeed iyo horumarkeeda dowladnimaduna waa midba doorka uu leeyahay inuu si sax u cayaaro hay-ad walba sector walba doorka uu leeyahay inuu si sax u cayaaro wax badanaa marka naga dhiman oo aanan gaarin oo aan gaari karno meeshaan waxaa ku qoran in dabarka laga furo yani hay-adaha iyo ummadda Soomaaliyeed maalgashiga iyo horumarka iyo wax walba dabarku meelo qaarkood annaga ayuu naga xiran yahay annaga ayaana isku xirnay mid caalam lagu xiran maaha bangiyada sideedaba markay soo bataan dhib ma laha suuqaasaa lagu tartamaa ninkii adeeg fiican haystana waa bulaala kor u soconaa oo macaamil fiican iyo dhaqan fiican iyo maxaan ku yiraahdaa leh kii aan lahayna uu dhimana marka waxa waa faraha ka bateen iyo maxaa la isugu xiraa lama yar siyaasadda laga ilaaliyaa inay fara ka bax noqoto laakiin businessku labada bangiga meesha ka furan bangiga aniga macaamilaadkiisa ii fiican yahay soo dhaweyntiisa fiican tahay adeegiisu fiican yahay amaanadiisa fiican too la tilmaamaan aadayaay midkan kale oo maxaan ku yiraahdaa laga shakiga laga qabo ee la waxay in waxaan rabaa bangiyada iyo ganacsatada oo gudoomiyay rugta ganacsiga ganacsatada badan oo kala khayaaroon garanay ay joogaan dowladda Soomaaliya
ayadoo u turaysa maxaan ku rahdaa bangiyadu waxay ka mid yihiin dalkan horta modelka economiga in uu private driven yani economy ay maxaa ay istaarsada u hayaan privatekaasi noocu doonaba ha ahaadee waayo dowladduna inay regulatorygii iyo nidaamkii iyo cashuuraadkii iyo waxa aan private gelin ay dadka ay u hayso waayo hase yeeshee runtii markaan ka hadalno marmarka qaarkood dowladdu caqabado badan ayay ku qabtaa waxyaaba qaarkood enforcementigii waa dowladdii oo turayso oo hay-adaha curdanka ah maanta dowladdu ayadaa hadda muujisay inay ku kalsoon tahay hay-adaheeda privateka ah hadduu bangi yahay hadduu xawaalad yahay hadduu isgaarsiin yahay laakiin iyadu dhaliilo badanay qabtaa oo ay isleedahay waa laga soo kori doonaa rajo waxaan qabnaa ah in lasoo korayo waana lasoo kori doonaa waxaan rajaynaynaa markaa in aan waxaan rabaa bangiyadu in ay open noqdaan cabsida iyo shakiga iyo waxa inay yareeyaan marna risk free ma la ahaanayo mar walba element oo riski ah wuu jiraa intii la yareyn kara riskiga ha la yareeyo unbaa yaa laga hadlaa bangigu fursado waayo waa fursad ammaano lacag ku kaydso maxaan ku irahdaa investment ka qaado deyn ka qaado maxaan ku irahdaa documenti bank guarantee iyo waxa loo baahanyo meelo badan markaa lagu soo xiraayo ka qaado bangigu adeeg waayo laakiin maanta Soomaaliya adeegaas yaa haysto afarteena magaalada joogta haysano dadka Soomaaliya intiisa badanna miyigu jira waxaan u baahanahay markaa in oo new horizons yani waa sida kaliya dabarka afarteena magaalada joogto miyaa iska furayna mise dadka Soomaaliyeed oo dhan baa laga furaya waxay u baahan tahay waxyaabaha oo marka gaaridda iyo waxa inclusivityga iyo reach outka iyo waxa iyo waa waxyaabaha bangiyadu ay ku sii bulaalaan bangiyadu kuma dhintaan kumana dhammaadaan waxaa kaloo qodobka kale oo bangiyada aanan ku ammaanayo aan leeyahay horeyna u sii socda waxay tahay issuega digitalizationka danabeynta dhaqaalaha ama maaliyadda ee loo sameynayo systemka digitalka ah ee lagu wada shaqeysta maanta data mobile money laga hadlaya wax kale laga hadlaya bangiyada waxyaabaha bangiga dhexe oo ku cidhiidhiyo waxaa ka mid ah isu furnaanta in la isu furnaado lacag war aan iska dayno jasiiradaha yaryarka aan ilaashanayna nin walba isgaarsiinta internetka ha la fasaxo ha la daayo oo ay dadka kale warda adeeg waayo adaa keensaday adaa soo fikiray adaa maalgeli bixi lacag ka qaada dadka charge garee laakiin adeegii bixi adeega isku koobin adiga kaligaa iskuma koobi kartid baasano saas ugu helaysid xataa inta yartaa oo clientska adiga aad leedahay bas aad ka heli leed waxaa ka badan malaayiin Soomaaliya marka adeegaas inta isticmaalaan aad ka qaadato jajab aad iyo aad u yar oo khidmo ah ayaa ka fiican lacag badan oo in yaroo client aad leedahay aad dul saari lahayd qof walba marka arrinta digitalizationka bangiyada waa ku bogaadina hana sii horumariyaan hana share gareeyaan qof walba facility uu sameeyo isaga yaanu isku koobin ha sii gaarsiiyo saaxiibadiisa kale iyo dadka kale oo la mid ah internetka مثلا ajnabiga yaan la keenin bangiyada yaan la keenin shirkada telecommunication yaan la keenin mindset oo monopoly waaye monopoly-gana waxba kuma hormaraan monopoly sidiisaba waxba kuma hormaraan mindsetkaas monopoly-ga inaan ka nimaado waaye service fiican oo dadka soo jiita la imaw banki associationka mas-uuliyada ka saaran caqabadaha bangiyada international banking keena haysta in uu u istaago marka waxaa la rabaa in ay taagan yihiin associationka oo kale chamberka oo kale inay hormuud ay ka noqdaan waxyaabahaas ay taagan yihiin oo iyaguba aanay dowladda bas aanay ka sugin oo ay waxaan regulatory framework-gana in aad iyo aad loo ilaaliyo war shuruucda haddaanan ilaalin dowladdu idinma difaaci karto bangiyaduna qarashkaas siiyaan association oo ku shaqeyn lahaa cashuurta dowladdana hala bixiyo dowladdu ma shaqeyn karto cashuurta qaran bangiyada
iyo hay-adaha isgaarsiinta runtii waa ammaanaya. wax walba ku ammaanaya, cashuuraha qaarkood waa ku ammaanaya sida ay hormuudka uga noqdeen. laakiin meesha ceebta ku harsan tahay waa intay mataqaanin ganacsatadooda jambarka iyo dadka wakiilka yahay iga bixi muxuu ahaa emergency-ga nambarkiisa ee nambarkan kale lacagta iigu soo tuur. waa tuuganimo. yaad lacagta ka dhowraysa, lacagta u diidaysa. ganacsatada Soomaaliyeed maanta waxaan rabaa halkan baaqa ugu jeeday waxay tahay waa dambi qofkii lagu qabtana ciqaabo mutaysanaya. qaanuun dalka u yaala jibiyo haysaa, ma furi kartid, ma bedeli kartid. emergency-ga meelaan ahayn lacagta kuma qaban kartid. Nairobi mugaan tagoon baar tagoon saxan bariis ka cuno 16% qiimihii saxanka bariiska inaan bixiyaan diyaar u ahay. maqaayi xamar ku timaad markaan ka cunana 5% aan diidanaya, aan la dhuumanaya, aan ka hadlaya, aan ka qaylinaya. waxaan leeyahay marka qaarkood caqliga noo soo noqdo walaalayaal. qofka cashuurta la dhuumanayo ha isku qancinin waxa tuugaa tahay, magac kale ma lihi. tuugaa tahay, khaainaad tahay, dalkaad khiyaano haysaa. hebelna ma khiyaano haysid, mid xukunka joogay iyo mid wasiira iyo mid cashuur qaada iyo mid madaxweynaha ma khiyaano haysid, waxba kama bi'iyo haysid. ururka bangiyada Soomaaliyeed iyo dhammaan bangiyada Soomaaliyeedna waxaan leeyahay guuleysta. shaqada aad haysaana shaqo aad iyo aad u fiican oo raalli laga yahay waaye. waxaan rajaynaynaa sanadka dambe annagoo intaan kasii fiican oo wax kaloo maanta aanan haysanin intaan helnay ku faano ama caqabad maanta taagneyd intaan ka gudubno dhihi karno sanadkii hore caqabadan waa kasoo aad taagneyd waa ka gudubnay aan dhihi karno oo aan ku faani karno. aad iyo aad ayaad u mahadsantihiin. shirweynihii bangiyadana waa noo furan yahay. asalaamu calaykum waraxmatullahi